madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u dhoofay magaalada Asmara ee dalka Eritrea halkaas oo kaga qayb galayo kulan madaxeed ku saabsan iskashiga saddex geesoodka ah ee dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya. War qoraal ah oo ka soo baxay xarunta wadanka Soomaaliya looga arrimiyo ee filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulankan ay ka qayb galayaan madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afawargi iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ku salaysan yahay dhamaystirka hanaanka iskaashiga dalalka gobolka iyo sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo xasiloonida dawladaha danwadaagta ah ee geeska Afrika. Sidoo kale qoraalka ayaa lagu xusay in muddada ay kulamadaasi socdaan madaxdu ay isla qiimeyn doonaan miro dhalka tallaabooyinka la qaaday si loo xaqiijiyo isu furfurnaanta dhanka diblomaasiyadda iyo si socodka bulshada gobolka, mideynta qorshayaasha lagu wiiqayo argagixisada iyo xal u helista caqabadaha ku xeeran iskaashiga dalalka gobolka. wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in ay la wadaagayaan dhigooda dalalka Eritrea iyo Itoobiya sida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay uga go'an tahay adkeynta dawladnimadooda iyo horumarka ay ku tallaabsadeen muddooyinkii la soo dhaafay, taas oo xoojinaysa in ay door muhiim ah ka qaateen geedi socodka horumarineed ee la hiigsanayo ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xarunta filla Soomaaliya ee looga arrimiyo wadanka Soomaaliya.